dagaal xoogan oo dhowr mar la isku soo laablaabtay ilaa iyo haddana rasaastii ugu xooganeed laga maqlayo ayaa ka socda duleedka deegaanka Raaskambooni ee degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. Soo dhawaada saaxiib wararka ugu dambeeyay qasaaraha kala gaaray dagaalkii maanta dhacay saaka ilaa iyo saacadan aan idin la hadlayno. weli waa la is horfadhiyaa oo rasaas ayaa la isku ridayaa, dhaawacyadu iyo dhimashaduna waa tirabeel oo meydad qaarkood ayaa hoodka deegaanadaas duleedka ka ah laga baadigoobaya. عمر كحيان هاي هالكن ورنبض هدي مقال كوسو قرص شركة روس حبذا لسه وذا قيمته صيف على نركتير نقوله بداقة مركل السور وذا صاحب بيال صباح نمدي هراء ساكا إلا يسا عدن عن إن الله لأنه وحا حبض إسكور هدية عيدا صوماليات أو كلاتها بحسن لبس سياسي أما لبس شخصي كواسي أو دنا سياسات أو جاره أو أديك سنة عيدا مدن دولة فدرال كأه صوماليا راسكامبوني وحا يجيسي عيدا مدي أقبضنا oo isugu jira noocyo kala duwan military iyo ciidamo sida gaar ah u tababaran oo gorgor lagu magacaabo iyo sidoo kale haramcad iyo ciidan kale oo ilaala qaran lagu magacaabo oo iyagana kamid ah ciidamada sida weyn loogu talagalay looguna tababaray inay la dagaalamaan waxa loogu yeero argagixisada. hase yeeshee waxay xilligan la dagaalamayaan ciidan kale oo Soomaaliyeed oo ku sugan deegaankooda sidoo kalena difaacaya dadkooda. wararka waxa ay sheegayaan saaka dagaalkii dhacay in lagu kala gubay gaadiid, lagu kala qabsaday hub, lagu qabsaday maxaabiis sidoo kalena dhaawacyo ay kala gaareen ciidankii halkaas ku dagaalamay oo magaalooyinka Kismaayo iyo Muqdisho loo soo kala qaaday. Raaskambooni deegaan duleedka ka ah isla markaana u dhaxeeya Buurgaabo iyo Raaskambooni ayuuna dagaalka ka dhacay si gaar ah deegaan lagu magacaabo Marneena kaasi oo la tilmaamay inuu ku yaalo duleedka deegaanka Raaskambooni. dagaalkaas wixii ka dambeeyay xabadu waxay istaagtay 12 duhurnimo ama 6 saac waxaana la tilmaamay in markii salaada duhur laga soo baxay kadib haddana dib la isku qabsaday oo halkaas dagaal culus uu ka dhacay. waxaa la sheegay in salaada casir marka ay soo dhaweyd ay haddana xabadu istaagtay, dhaawacyada la kala qaatay, meydadkiina la kala urursaday, wixii dhaawac daran ahna loo soo kala qaaday magaalooyinka Kismaayo iyo Muqdisho oo ah meelaha inta badan ciidamada laga kala daabulayo. isla hadda wararkan soo gaaraya waxa ay sheegayaan in dagaal culus uu ka qarxay buur lagu magacaabo buurta qalcad oo la sheegay in halkaas ay horey u haysteen ciidan ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaana la sheegay in dagaalkaas la isku adeegsanayo hub leh noocyo kala duwan oo waliba kuwa waaweyn ee loogu talagalay in loo adeegsado cadawga gudaha iyo kan banaanka Soomaaliya. waxaana wararku ay sheegayaan in gaadiid xilligan la sheegayo oo waliba cabdibilayaal u badan inay kala qabsadeen dhinacyadu sidoo kalena qaarkood la kala gubay. ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo laga heli karo oo halkaasi ka imaanaya maadaama internetka ama xiriirka dadweynaha ee halkaasi ku sugan uu aad u culus yahay, aysan markaasi awoodin guud ahaanba wariyaasha iyo dadka xogaha inta badan ka raadiya dhinacyadaas aysan u suuragelin in xog dhameystiran ay helaan marka laga reebo in uu dagaal socdo. dadka deegaanka qayb ka mid ahna oo waliba xiriirkooda uu aad u liito ay sheegayaan in jug culus ay maqlayaan oo waliba la isku adeegsanayo dagaalkaasi. dhinacyadan ilaa iyo hadda waxa isku haystaan lama oga marka laga reebo arrimo siyaasadeed oo ka dhaxeeya maamulka Jubbaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka maqan dalka oo wadanka Turkiga waxa uu gorgortan kula jira dawladda Itoobiya gaar ahaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo uu kula gorgortamayo dhul Soomaaliyeed, bad Soomaaliyeed oo uu saxiixay mid kamid ah maamulada dalka ka jira. lama oga isagana waxa uu Abiy Ahmed ka soo qaadan doono iyadoo Soomaalida intooda badan ay isweydiinayaan sababta keeni karta in ciidamo Itoobiyaan ah oo gudaha dalka si sharci darro ah ku soo galay dawlad Soomaaliyeed madaxweynihii hogaaminayay in uu la gorgortamo nin madaxweyne ah ama ra'iisul wasaare ama dhigiisa ah oo uu kala hadlayo arrimo badeed oo waliba Soomaaliya ah. ciidamada Itoobiya beled xaabo iyo tuulooyin kale oo hoostaga ayaa la sheegay in ay ku wajahan yihiin oo iyagana isku fidinayaan gobolka Gadow. sidoo kale isla maanta mucaaradka Soomaaliya waxa ay soo saareen war-saxaafadeed dheer oo dhowr qodob ka koobnaa oo ay nasiib darro ku tilmaameen in ciidan Soomaaliyeed ama wiilal Soomaaliyeed la iska horgeeyay oo dana siyaasadeed loo adeegsanayo. Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee dawladdii kumeel gaarka ahayd ayaa ka mid ah dadka war-saxaafadeedkan ku saxiixan ra'iisul wasaarihii hore ee dawladdii Farmaajo Xasan Cali Khayre iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isagana ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. khubaro falanqeeya arrimaha amniga ayaa nasiib darro ku tilmaamaya dagaalkan ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa dawladda ku dhexmaraya Raaskambooni iyo guud ahaanba duleedka deegaankaasi. wixii ku soo kordha dagaalkan oo ah mid aad u qaraar sidoo kalena qasaarihiisa uu halkan ka sii badan karo barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa.